السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقي ياسمين واي كسو دو عافيماد فيعن maanta inta waxaan noogu hayaa basbaas cagaar nooc ala nooc carabtid iyo cabbage. waxaan sameyneynaa maanta wax la yiraahdo fermented foods. insha Allah basbaasa ka samaysan kartaa, cabbage ka samaysan kartaa, qajaar ka samaysan kartaa, cucumber. basbaaskan basbaas cagaar Americana la yiraahdaa, mid alla mid ka rabto ka samaysan kartaa. dhib ma jiro, wax alla waxa haysato. The point here is fermented. waxaan ku dadaalaynaa cuntooyinka fermented ka ah sida khamiirka oo kaleeto oo naturalka ah. waxaa la iska rabaa haddii ilaahay yiraahdo galaas lagu shubaayo, kuma shubayno caagaga marar badan aadan la qaybsaday caafimaadkeena nooma fiicno. galaas haddaa heli kartid iyo daboolkiisa dhag ku noqonaysa insha Allah. soo dhawaada walaalahay, waa idin wada salaame kulligiin. waxaana ka hadli doonaa cajiinka Soomaaliya, canjeerada laga sameeyo iyo fermented uu yahay sourdough waaye. waa wax dhanaana camal. canjeero marka la suubiyo waxaan dhihi jirnay waa inay indho yeelato, maasha Allah. marka cuntooyinka fermentedka aan leh waa cuntooyinka lasoo qamiiriyay sida cajiin Soomaaliya oo kale, oo wuxuu u fiican yahay our gut, wuxuu u fiican yahay caloosheenna insha Allah tacaala. marka maanta galaas hadaa noo soo diyaariso, basbaaskan ka bilaabayaa. basbaasaan jarjarayaa. geeskan waxaa ii yaala cad cabbage aan soo jaray. waxaa kaloo ii taalo toon aan soo fiiqe. basbaas guduud ha ku yaalo, cagaar ha ku yaalo, wuxuu rabaa ku yaalo. haddaa basbaas jeceshahay basbaas ka samaysa. basbaas haddaadan jeclayn cucumber qajaaroo kala samayn kartaa. karootooyina fiiqi kartaa ka samayn kartaa. waxa kaliya u baahanaa waxay tahay inuu qamiir noqdo, natural qamiir noqdo. marka basbaaskii inta mataqaanaa aan jarjaranayo waxaan soo qastay baaquli ama digsi ku soo qaso 2 macalgadoo cusbo ah iyo 4 koob oo biyo ah. cusbadaas kaliya fermented ka suubanaysa. waxaan rabnaa inay dhalaasho cusbada. adaan arki doontid markaan korka ooga soo shubo basbaaskan aan sii diyaarsada insha Allah. waa kaasaa cusbaan soo dhalaalsada, biyo leena ku dhalaaliyay, mana karkarinin. korka ooga shubayaa dhaladaas oo basbaaska ku jirto. waxaan qaadanaynaa hal cad oo ahay, waa ujeeda inaan jarooyo cabbage-kii. tartiib u gelinaysaa, waa ku dabooleynaa. daboole looga dhigayaa cabbage-ka iyo dhalada daboolkeedana waa kusii dabooleynaa, laakiin xoog uma xirayno because it will release gas hadhow ka soo baxaayo. aan mataqaanaa rabnaa inuusan dhalada cub ku ahaanin. cub looma xiraayo, xoog looma xiraayaan ka wadaa. waa kasta korkan waxaan oga daboolay cabbage-ka. waxaa waaye mold inuu noqdo aan diideyna ay naga khasaarto. waa xiraysaa, xoogna uma dhuujinaysid. hadhowna baaquliyan sii saarayna hoos wixii ka soo daato. ilaa xoog looma xiranay maxayta ku daadanayo. haddaa derbiga iska saarato waxyaalaha ka soo daadanayo oo gaaska ahoo noo fiicnayn derbigu kaa halaynaya. laakiin markii aan waxa dhan wada suubi anaa ku tusaaya sida galaaska aan ka wada waxa aan saaray, adaa arki doontid. haddii basbaaska uu ku dhibayna waa sida aan uga soo hadla. hadda ani basbaaskaasaan rabay 1 xabo toonaan ku darsaday. filfil haddaa rabtid ku darso, kuuskuusan xabaaji kuuskuusan ku darso, wixii adi jecesha. reer basbaas haddaadan ahayna waa saan usoo dhahay, karootaa jarjari kartaa. qajaar waxaan u aqaanaa aniga cucumbers waa u samayn kartaa. maraba gacmahayga inaan ku taabto basbaaska, hadhow waxaan diidaa anoo dhaqa xataa ishaadaa taabane xagga le oynay waa ka siisaano hooshaasoo kaleeto. marka macalgad isticmaali kartaa insha Allah tacaala. hadhowna biyihii le ku shubaynaa oo cusbada lahayd, wax kaleeto lama sameynayo. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ka soo hadlay wuxuu yiri every disease it's in the stomach. disease waxaa waaye cudurada calooshay ka dhashaan. caloosha hadday nadiif noo tahay, sour foods aan cunno sida canjeerada khamiirka naturaliga wadato oo cunno, cuntadaanoo kale fermentedka, good gut aa lahaaneynaa. gluten free iyo dhibaatooyinkaas hadda jiro. dadkii digestion ma suubin karaan sababtoo ah cuntooyinka qaarkood waxbaa lagu daraa. marka we need fermented food, waa u baahannahay.
soomaaliya xikmay ee leedahay cajiin aa noola qasi jira marka canjeerada la dubo subxaan allah wixii ka haro hadhowna lagu shubi jiray waa sour dough bread haddaa maqashid maasha allah soomaaliya aqliyaa yaalo alxamdulilah marka qamiirisada lagu daraayo hadda rootiga iyo waxyaalahaas iyo dhibaatooyin dadka u keeneen subxaan allah marka alaabta waatana iyadoo qurux badan basbaaska saasuu noogu soo dhammaaday waxaan kaloo fermented ku suubinaynaa cabbageka laakiin biyohan ma lagu daraayo adaa arki doontid kan noo dhammaystir cabbageka cusbo loo u baahnaanayaa insha allah waa taasaa marka galaasadan waa xirayaa 2 sitimaan 1 sitimaan 2 sitimaan darbigaas iska saarnaanayaan hadhow markaa furto ood ka bixisid cabbageka waa ka tuuraysaa waa inaad finjeerka gelisid hadda ka hor lay dhahay abaayasmiin raaxamar finjeer maxaa la dhahaa tallaaja la yirahdaa tallaajadiina hadinka aadi ahaato ani finjeerkaygaas ii ahaana ma ogtahay see camal marka waa kaas alaabta iyadoo qurxoon dhag toon ha lahaato waxaa harta ku darsa adiga toonta waa ujeedaa ogoona basbaaskaas cagaarkiisa wuu isbedelayaa hadhowda fermentada uu noqonaa kalarka wuu isbedelaa cabbagkiyaa marka noo soo horay insha allah dhalooyinkaana usii diyaarsaday halka xaba cabbage jarjaray ama midi ku jarjaro ama food processor ku jarjaro waxaa la rabaa wax yar lo inuu noqdo jarjaro cusbadaas aan korka uga shubaya aniga pink salt Himalayan salt haystaa shaqada kuu taala marka waxaa waaye waa inaa masaajayso cajiimisid waxaa raba biyo naturally inuu dhalaa la rabaa haddii ilaahay yiraahdo saas loo cajiimi adi sabar lahowle markaa cuntada cajiiminaysidna ka fakar waxyaalaha qaarkood oo positive ka oo negative ka ahayn cuntada haddii kale energy-gaaga waxaa cuntada galaya wixii negative abaayasmiina saan ii xumaysay saalax xasaan iyo caaye hebelooba kan ka dhacay haddaa maskaxdaada ku jirto cuntaday galaysaa energy-gaas negative-kaas ma u fiicno ka fakar alxamdulilah washukrillah ilaahu adaa isiiye cabbage-kan ilaahu daaba noogu dar ilaahu adaan kugu xamdiye cuntadaas caafimaadaa laga sii qaadaya walaalay hadduu faraanti kuugu jirana faraantiga intaad cuntooyinkan qasqasan rooti hadaa qasiisa cuntadan hadaa qasiisa cajiin qasiisa faraantiga iska bixi sababta cuntada faraantiyada qaarkood ani waxaan ku arkaa wasaq inay geesaha ka yeelato ama dhaxda ka yeelato marka cuntadii wasaqda jeermiskeeda ay kaa galaysaa marka faraantiga gees iska dhig gacmaha iska dhaq fresh gacmahaaga oo saasoo cajiiminaysaa biyo markuu dhalana natural biyo uu dhalaya ilaa cusbadii iyo cabbagekii isdhexgalaya ma ogtahay waana ku tusayaa wixii biyo kasoo daadan doona insha allah arag yaa biyaha arag waa kaasaa biyihii daag fiiri haddana mujeedada waxa biyo uu dhala natural biyahaasaa la rabe hadhow biyo kuma dareyno cabbage kaleetale ku dabooleynaa isagana waa dabooleynaa xoogna ha u xiran insha allah dhaladaasaa lagu buuxinayaa qada hadaa qadaysid cunto hadaa canjeero suugo ku cuntid waxyaroo macalgad ageeska saarane laakiin waa inuu 1 sitimaan iyo 2 sitimaan 3 sitimaan xataa aniga darbigan ku haynaya waxaa la rabaa inuu fermented fiican aad u noqdo mujeedido markaan kusii daro oon riixo biyaha kasoo daadanaya adaa arkaysid insha allah waa kaas day dhag waa kusii riixaysaa leh maasha allah tabaaraka allah cuntooyinkan waxay u fiican tahay jirkeena mujeedada biyaha waa kaasaa biyo dhale it's amazing cusbadii asaga le waaye carabta iyo wadamadaas markaa aado fermented foodkan cuntada way cunaan mujeedada biyo anaga ku daran uga soo daadanayo carabta iyo dadka wadanka wadamada muslimiinta ee cuntooyinkan ay qabaan markay bariis wax cunayaan gees kale ku shubtaan galaaskaasaa ii yaalo waa kor saaraya darbigan iska dhigaa 2 sitimaan ilaa bilan ku haynaa mid alle midkan furana cabbageka daboolka ahaan ka qaada waa ka tuuraya finjeerkaa gashanaysaa macaalgad yaraa maalinta kugu filan haddaa igu cusub tahay subscribe garayso walaalahay fiidiyaashana thumbs up siiya insha allah waana isla hadlaynaa haddana next video haddii ilaah yaraado waa kaasaa waa qaaday darbiga saaro dhag meeshaasay kugu jiraysaa hadhowna talaajadaada gasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.